Assalaamu calaykum qaraabo soo dhawaada videogeena cusub videogan maanta waxaan rabaa in uga hadlo market update inaan fiirino bitcoin xaaladii ku jirto inaan fiirino SP500 iyo nasdaq xaaladii ku jiraan iyo inaan fiirino goldiga oo weli rabo inaan ku taagsado hadhow waxaan kaloo rabaa inaan fiiriyo haddii uu dagaalka ku qaado Mareykanka Iran maxaan ka sugeynaa suuqyadan especially stock marketka iyo in ay dhacaan sidaas oo kale inaan fiirino cryptada ama bitcoinka ma wuxuu geli doonaa waxa la yiraahdo capital rotation maxaa tahay inaan isagana idin macneeyo soo dhawaada insha Allah bilaabayna waxaan ka bilaabna kooda hore suuqa update inaan ku sameyno chartiga as usual sa ujeedaan xaaladda ma ku jirnaa okay haddii aad fiirisaan marka aan aadna hal mar dailyga suuq weli wuxuu ku jiraa sign movement weli waxaan sugayaa inuu hoos soo dego oo wax cusub oo hadda runtii crypto u fiirino oo cusub kuma soo darsamin ilaa uu loogan jabiyo aniga kuma degdegayo sidaas oo kale waxaa laga yaabaa hadda kor u socdo xogaha uu kadib hoos aado ama uu kor hoos yaado that's another story laakiin suuqa waxaas leeyahay weli ma dhamaystiranin dhaqaaqiisa hadhowna waan ka hadli doonaa isagii goldiga iyo ama capital rotation waxa la miyaa jiro capital rotation maxaa tahay waxaan waa idin macneyn doonaa insha Allah hal mar aan galno marka sidaas oo kale suuqyada kale oo dhan haddaa fiirisid iyaga dhan waa wada side bay u socdaan so flag camal bay samaysay weliba tan three touch camal bay samaysatay oo arkeena waxay ay ku dhaqanto laakiin sidaas kale iyadana waxaan ku sugaynaa wax yar hoos aado inta aadaba sidaas oo kale ethereum isaga naftigiis wuxuu u egyahay wax oo sal u sii socdo oo zoonkan inuu imaado aan ka sugayo haddaan hal mar galno marka stock marketka aniga maadaama weli idinla qaybsanin waxaan isleeyahay dib baan u dhigan doonaa laakiinse hadda waxaan rabnaa inaan fiirino SP500 nasdaq oo ah labo equity aan fiirsho si aan u ogaado suuqyada maxaa la dhahay maadaama stockyada aan aniga haysto dhan ay u badan yihiin stock market oo suuqyadan ku jira labadan equity ay haystaan haddii ay iyaga hoos aadaan ama labadan suuq ay hoos aadaan iyagana badanaa saameyn bay ku yeelan kartaa marka weli waxaan ku jirnaa xaaladii saa ujeedad meeshan waxay ka samaysay some sort of a three touch so ana suuqan waxaan sugayaa in uu hoos aado hoostaas uu aadayo horta waxay ku xiran tahay arrinta oo dagaalka iyo wuxuu saameyn ku yeesho laakiin ani weli waxaan ka sugayaa zoonkan oo ahayd zoonkii aan weliba awalba ka sugayay inay timaado kadibna aan aragno sidaan u dhaqmi lahayn haddiisan ku timaada si xoogan waa inaan sugnaa iyadan inayna siisaa saameyn aan dhihi karno dhihi karo okay lacagta waxay socotaa bay haddii ay ku timaado si saan camal ah maaragta tartiibtaas u socdo maybe inay markaas bay isu wareegayso waan arki doonaa taas markaan ka gudubno iyadana sidaas oo kale nasdaq aan fiirino nasdaqna exactly iyadana waxaan ka sugaya mooyaan inkastoo weli aan dhihi karo waynu henay moleynaa sanadkii three touchkiisa kuma taaban laakiin dhimale waa suuqan aniga naftigiis waxaan rajeynaya inuu hoos ii aado marka suuqyada weli meeshooda bay joogaan waa ka dhaqaaqi laayihiin of course dunidana haddeertan dagaal cusub waxaas bay gelaysaa soo investorada ma lahan geesinimadii ay ku bilaaban lahaan wax cusub teeda kale waxaan ku jirnaa maxaa la dhahay correctionka ugu horey insha Allah videoyaasha aan soo wada mid kamid ah waxaan ka hadli doonaa sida loo ogaado markii suuqa bullish u yahay iyo markuu bearish yahay ila socdo okay kadib waxaan fiirinaynaa spus oo ah SP500 oo islaamiga ah oo aad invest garaysan kartaan kan haddii ay haysataan brokerada Mareykanka ayay ka jirtaa so haddii ay haystaan brokeradan
maraykanka stock market yadiisa ku ogol iyadana waa equity oo xalaal ah oo aad ku shaqaysan kartid iyadan waa the same concept because marka sugayo wax ka duwan waxa SP500 inkastoo SP500 kaga duwan tahay oo insurance-ka iyo shirkadaha ah ma gataan kuwan balse still weli waa ujeeda suuqa 500 company markaysa u dhaqaaqayso suuqa isku sibuu u dhaqaaqaya sida u jeedid okay gold waa usoo noqon doonaa hal mar bal aan aragno suuqa haddii uu maxaa dhahay hadda sabti habeenkeeda baan duubayaa videoganeeto suuqa waxaa soo socda wax la yiraahdo ma soo socday waaba dhacayba dagaalkii Iiraan maantuu bilowday ilaahay ha naga hayo dhibaato weyn buu la iman karaa dagaalkaas especially haddii oilka iyo lagu qaado Iiraan burburiso oo wadamada khaliijka aan geli doonaa xaalado oo isleeyahay hadday sheekada sii xumaato billion of people ay gaajo u dhiman karaan waxaas camal waayo haddii oo saliidda ay dhamaato wadan kasta wuu isxirayaa wuxuu isku daya inuu ilaalsado inta uu haysto marka maxaa waaye marka haddii suuqan haddii ay dagaalkaneeta muxuu keeni karaa uu keeni karaa SP500 iyo Nasdaq obviously suuqa hoos reaction wuu ka bixin doonaa isniinta isleeyahay maybe inuu hoos yar aado laakiin waxaa la leeyahay suuqa waxaa kor u wadi doono oo laga yaabo inay profit galaan maxaa la dhahay defense stockska net ayaa la leeyahay suuqa waxaa laga yaabaa inay galaan wax la yiraahdo inay bullish galaan maadaama dagaal jiro oo iyaga yihiin kuwa ka faa'iidaysanayo sidaa ujeedid inta different stocks have been treated as a geopolitical barometer when the tension rise and military conflicts breaks out maxaa la dhahay when the tension arise and military conflict breaks out shares climb shares climb marka maadaama saas ay u barteen waxay sugayaan inay isniintana kor aadaan oo ay sidaaseeto maaragta somehow balance ku sameeyaan stockyada dhacayo maalinta isniinta waxaa laga yaabaa guduud yahay suuqa ama inuu guduud ahaado isbuuca dhan maadaama aysan dhamaaneyn waxay ku xiran tahay si kasta kor u aadaan miyada wax kor u qaadi karo suuqa oo dhan mise iyagoo baay ah haddana suuqa wuxuu sameyn karaa inuu hoos usii socdo waan arki doonaa insha allah tacaala isagana okay marka aan ka baxno marka waxaa jira qodob aan rabo inaan maanta ka hadlo oo ah wax la yiraahdo capital rotation waxa waaye wax suuqa ku dhaco mar walbo oo uu suuqa galo xaalad recession ah recession suuqa waxaa laga yaabaa inuu recession ku jiro sida 1929kii 1970yadii oo goldiga iyo US dollarka ay kala fuqeen wax la yiraahdo 2000 boomka markuu dhacay ilaa 2008 suuqa wuxuu probably sameeyay all time high somewhere 2007 meelahaas ayuu sameeyay new all time high suu hoos u aaday 2000 toddoba sano ayuu suuqa wuxuu ku jiray in la meereyso haddaan hal mar marka idin tuso SP500 weli aan si gooni ah u tagno xaaladda uu ku jiro suuqa aan mar weekliga okay ma jeedaan inta kulli monthly geeyana okay suuqa xaaladan ayuu galay waa ujeedaan soo suuqa xaaladan ayuu galay markii uu dotcom uu dhacay suuqa hoos buu aaday kadib waxay ku qaadatay 7 sano suuqa in uu sameeyo new all time high waxay ku leeyihiin hadduu kor aado suuqa inuu kusoo noqdo meeshii uu kasoo daatay haddii markuu capital rotation jiro waqti dheer bay ku qaadanaysaa marka dadka lacag
lacagtan intay geynayaan hadii inta aysan ciyow gelin intuu suuqa kor aadin intay geynayaan lacagtan badanaa waa meelaha marka ay geliyaan goldiga waa marka uu kor aado marka hanu ku sameyno comparison goldiga comparison ku sameyno okay ma ujeedaa meeshanaydo aan hal mar jaro hadii kale soo arkayno we can clip it hadaa fiiriso suuqan hoos buu soo aaday ma jeedaa laakiin saa ujeedid goldiga kor buu aaday kan waa percentage wise ma ahan price wise laakiin while uu sp 500 uu dhulka galayay oo ay ku qaadatay inuu dhulka galo from all time high to all time low ay ku qaadatay somehow aan dhahno labo 3 sano ku qaadatay suuqan inuu yes waxay ku qaadatay infaar 3 sano suuqa inuu meeshu kasoo bil 2 sano aan dhahno iyo bar inuu suuqaneeto meeshii uu ka bilaabay ilaa iyo uu hoos aado hadii 2 sano xogaa iska dheh waa long time compared to these days maxaa la dhahay kii 2021kii kii 2018kii kii 20 hadda 2025ka caadiyan waxay qaadataa 1 sano inuu suuqa uu bear market ku jiro 3 sanana uu bullish ku jiro suuqa marka inta waxaa dhan hoos usoo socdeen ninkaneeto goldiga kor ayuu aadaya because lacagta isagaa la gelinaya majeeda hadhowna marka suuqan tartiib uu kisaysanayo majeeda suu kor u aadaya goldiga so 7 sano waxay ahayd 7 sano waa ku ceeba bahalkii 7 sano uu suuqaneeto kor ku jiray okay taasoo ku tusayso inuu jiray wax la yiraahdo capital rotation marka capital rotation maxaa tahay hal mar idin macneeyo nagay Gemini okay capital rotation maxaa tahay bilo Soomaali baan ku qoray ila fahantaan capital rotation waxa weeyaan suuqa maxaa la oo marar qaarkood loo yaqaano market rotation waa marka maalgashadayaashu dadka maalgashiga marka gaar ahaan hay-adaha waaweyn sida bangiyada sanduuqyada maalgashiga maxaa ka wadaa institution investorska lacagtooda ka saaraan qayb ka mid ah suuqa kadibna ay u wareejiyaan qayb kale marka hadda kii aan tusay 2000kii waxay ka qaadeen stock marketka lacagtii kala baxeen maadaama hoos aadaya waxay geliyeen goldigii mila socotaa taasoo ku tusayso in ay aaminaadii lagu lahaa stock marketka hoos u dhacay oo ay kor u kacday goldiga waa mar walba meel loo fakado marka xaalad adkaato goldiga lagu wada cararaa hadda marka maadaama uu geopolitical ahaan ay xaaladda adag tahay oo aan ku jirno runtii period oo iska yara wareersano ilaahay hanaga badbaadsho waxaad arkaysaa dahabka in aad loo gadanayo dadkan oo Chinese-kana aad bay u gadanayaan Mareykanka markay arkeen Chinese-ka oo gadanaya waxay bilaabeen inay gataan walba dahabka buu ku cararayaa waayo haddii suuqa uu dhaco recession sida kuwa ugu xun oo la sugayo yaa dahab haystay sheekada taaganta xaanshiyahan oo hadda lacagta la dhaho US dollar lagu dhahayo bilada ka baxayan dahab wax lagu kala gadanayaa wax lagu gadanayaa wax isku hubo oo labada dhinacba qiimo agtooda kale marka bitcoin-ka miyuu ku jiraa xaalad saas camal ah waxay leeyihiin waxa weeyaan inuu maxaa la dhahay bitcoin-ka isaga naftiisa uu gelayo wax la yiraahdo capital rotation ama waxay leeyihiin waxaa jira high chance not high chance inuu chance baa jira aan dhahno uu ku dhacayto marka arrintan waa arrin socota oo maaragta laga hadlayo in suuqa uu ku jiro maadaama ay ku jirto discount level oo ay hoos ka caali aysan ahayn hadda markii loo barbardhigo all time high-ga
in ay cabaar meeshaas ku jirto inuu yahay riski jira, riskigaasna uu keeni karo in ay dhowr sano ay ku jirto aysan new all time high sameynin. Waxaa taas samaysay haddaan idin tuso Solana. Okay, can we cut this? Yes. Yeah. Solana waxay samaysay ma aysan sameynin new all time high ma jeedaa marka tan ay dhacday 2025kii aniga waxaan sugayay suuqan inay new all time high samayso ma aysan sameynin waxaa dhihi karaa Solana hadda waxay ku jirtaa weli ma la dhaho waa downtrend bay ku jirtaa hadda balse in ay maadaama aysan sameynin new all time high this zone can be all maxaa la dhahaa zonka oo correctionka ay ku jirto si inta ugu soo noqdo waxay ku qaadan kartaa waqti haddii bitcoin gashata ay gasho capital rotation tan waxa wax weyn ha ka sugnin okay marka sida ujeedaan maxaa la dhahay waxaan rajeynayaa inuu ilaahay dagaalkan iyo maaragta usan nagu cusleynin nagu cuslaato xaaladdu way adkaanaysaa waxaan soo duubi doonaa 2 video oo screen share aan sameyn doono oo aan ka hadli doono 2 sabab oo keentay in suuqa oo kriptada especially bitcoinka dhulka la geliyo yaa ka dambeeyay kuwana waa kuwo ku sameynaya shorting shirkadan la yiraahdo macro strategy oo uu leeyahay ninkan Saylor lahaa 700 oo kun oo bitcoin buu haystaa waxaa laga hadlayaa $50 billion just value oo bitcoin uu haystay markay ay lacag qaali ahayd kala 2 video soo duubi doonaa midba aan goonidiisa uga hadli doono si ay idinkana wala qabsataan markaas buu soo maashinaan doonaa aaminsan wabillahi tawfiiq intaasaan ku kala tegaynaa waa inuu next week wabillahi tawfiiq